waxaa jira caqabado badan oo ka hor yimaada hal abuuraha ganacsi waxaan halkan idin wadaagi doonaa 10 qodob ee ugu muhiimsan qodobka koobaad ee caqabadaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah dhaqaalaha haddii aanu qofku haynin dhaqaale oo ku bilaabo ganacsigiisa ma wadi karo qofku ganacsigiisa wana caqabad bay ku noqonaysaa qodobka labaad xuquuqda iyo sumadda fikradiisa ganacsi ee ganacsatuhu uu leeyahay taasoo ah carqalad ama caqabad qabsato qof kasta oo hal abuur ganacsiya marka uu bilaabo meel cid uga cawdana aanay jirin iyo sharci ka qabanaya qodobka saddexaad waxa weeyaan qofkani waxaan uu hal abuuraha ganacsi ku yahay hadii aanu xirfadiisa garanaynin hadiya jaraale caqabad bay noqotaa oo aanu xirfadiisa lahayn dadka uu shaqaaleysiisanaya ay xirfadiisa leeyihiin caqabad bay ku noqotaayo waxa timaada inuu qof ku xidhnaado gacanta qof kale maadaama uu shaqadiisa u garaneyn qodobka afraad waxa weeyaan falcelinta taban ee bulshada uu ku xeeran isaga oranaya ma karaysid ma awoodid waxana kuma soconayo lacagta inta leegma haysid taas waxay keentaa in caqabad qofkii ku noqoto in niyad jabiso qodobka shanaad culayska waajihida warwarka ganacsiga marka uu bilaabay hal abuur ganacsi yahay wuxuu qofkaasi waajahaya warwar fara badan oo ah kiradii halka ka keenaysa waxyaabo fara badan oo ku xeeran ganacsiga qodobka lixaad shaqaalihii laba dhinac bay noqotaa dhinac waxa weeyaan inaan qofku dhaqaale ma haysan ku shaqaaleysisid businesskaaga ganacsigaaga shaqaale iyo in waayo shaqaale xirfad leh oo shaqadan ku haboon labada ayuu si kala baxaan shaqaalaha carqalad ay ku keeni karaan qodobka toddobaad takoorka fursadaha ganacsi taasoo keenta in qofka lagu yiraahdo wada yar tahay gabar baa tahay taas waxay keenaysaa in qofkii takoor lagu sameeyo laga saaro meesha qodobka sideedaad tartamahaaga oo kugu sameeyo sababo uu kaaga saarayo suuqa sida inuu adeegii ama wax soo saarkii aad sameeynayay uu ku sameeyo qiimo jab suuqa intuu ka taagay in laga sii jabiyo adigana khasaare ku gelinaya isagu maadaama awood u leeyahay iska xijin karo suuqa adoon iska xijin kareen kadibna suuqa aad ka baxday qodobka sagaalaad helitaanka macmiil inaad ganacsigaaga cusub u hesho macmiil waxay noqonaysaa carqalad sababtoo ah ma taqaanid ilaha aad ka helaysid macmiilka qodobka tobnaad ee ugu dambeeya isbedelka xiriirkaaga bulsho oo ah marka hore waxaad ka soo baxaysaa saaxiibo iyo qoys aan ku jirin ganacsiga taas waxay kugu noqonaysaa carqalad waxay ku fahmayaan inaad iyaga xiriirkoodii goysay in aad wax kale u dhaqaaqday taa laftigeedu waxay kugu keenaysaa carqalad 10 qodob baan ku soo koobay